رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البره oo khudbad ka jeedinayay ka qaybgalka munaasabada hogaamiyaha dowlad goboleedka waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa jiray aad ayaan uga xumahay in hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu fadhiyo caleemasaarka laakiin uu ka maqan yahay kii Puntland Saciid Cabdullaahi Dani laakiin waxa ka daran ayuu yiray midka aan aqoonsaneen oo aysan dowladda aqoonsaneen ee Jubbaland أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي هذا هو حال كان ربنا كل وداعو حق فحصن وارين تاسي كوسابسن يصيدو كله مناسبات دي ما أنت كد عضي دي جانب معمول كوقوي بري هذا هو سعيد عبد الله الدني هو جاميها معمول قبلات كبونتلان وأيها الدنبئات أي عريسنا وحونا شيء إن لبا أرين وكفي كراية متكوت تاس أو إن أوريالي جيلين كبحيو wixii qadaad ah ee uu galay kana galay dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed iyo in uu raali gelin ka bixiyo ama uu siiyo madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamza Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha dalka labadaas arin ayuu aad uga fikiraya maalmihii dambe waxaad arki doontaan qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo arintan looga hadlayo meel ku qorta sidoo kale Dani ayaa ka go'ay ayaa la yiri cuntadii wuxuuna ka shakiyay ciidamadii wuxuuna waayahan dambe tuhmaayay in ciidamada ay ka sii go'ayaan amnigiisana uu faraha ka sii baxaayo wahagaag ra'iisul wasaaraha haddii aan dib ugu soo laaban wuxuu jiray munaasabada maanta macno weyn ayay gudbinaysay beesha caalamka iyo wadamo kala duwan ayay tusaysay in Soomaaliya hal ay tahay waxayna god ku riday arintii 30 sano ee qariska Turka ee maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya fadhigiisana uu yahay Hargeysa haddaba waxa uu si toos ah ra'iisul wasaaraha oo aan lixleexad lahayn farta ugu goday in laba maamul goboleed oo Soomaaliya ka tirsan dowladda Soomaaliya hoostaga canshuurtii dowladda ka qaata isla markaana shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir wixii canshuur ah looga qaado ay qaataan shacabkoodana lagu taageero in maanta ay goobjoog ahaan waayaan munaasabada mid waa Dani oo Soomaaliya lafdhuun gashay ku noqday midnimadeedii ee sidoo kale kan Jubbaland oo kadar oo dibi dhal noqday sida dad badan ay aaminsan yihiin horena uu sheegay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya haddaba labadan maamul ee ah Jubbaland iyo Puntland ma u aaminsan tahay mana u aqoonsan tahay in ay yihiin kuwa dowladnimada lugta haya dowlado kale u shaqeeya calooshooda u shaqeeya laakiin aan rabin midnimo iyo sidoo kale wax la yiraahdo qarannimo Soomaaliyeed haddii aad aaminsan tahay iyo haddii aad aaminsanin qaybta faalada noogu reeb muuqaalkan waxa gudbin kara qof kasta oo wadani ah qof kasta oo dal jacayl uu ku beeran yahay laakiin ma gudbin karo mana sii sheergarayn karo qof intaas aanan ahayn oo raba in uu difaaco qabiil gaar ah iyo qadiyad qabiilad qof uu ku beeran yahay laakiin qofka wadaniga ah ayaa muuqaalkan sii gudbin kara sheergarayn kara bugana soo follow garayn kara laakiin intaas ahayn muuqaalkii sii gudbin sidoo kalena page kana follow yuusan soo dhihin